qaabkan waa qaabka ugu fiican ama waxa waaye shayga ugu fiican ee loo beero qajaarka. Open field-gana waa lagu beeri karaa, laakiin qaabka meesha ugu fiican oo lagu beero ama environment-kiisa ugu fiican waxa weeye waa greenhouse-ka iyo waraabka la yiraahdo difqinta ama drip irrigation-ka. Marka waxa weeye waa nooca ugu wanaagsan ama qaabka ugu fiican ee la abuuro baalkan qajaarka. Qajaarku waa qayb ka mid ah fruits-ka ama waxa waaye shayga ama qudaarta ka tirsan oo waxa waaye shayga loo cuno sida cuntada la dul saarto. Waxaa kaloo loo samaysan karaa qaab cabitaan ahaan. waxaa kaloo laga sameeyaa waxyaabaha oo jirka bini'aadanka loo isticmaalo ama lagu qurxiyo. waxa waaye wax badan buu ka taraa shayga maqaarka. Marka waxa weeye sidaan markii loo abuuro kabacdi waxaa la sameynaa in lagu sameeyo bahalka la yiraahdo in lagu sameeyo xargo loo xiro. kabacdi xarigaas markii loo xiro waxaa la sameynayaa xarigaas oo raacaya. marka xarigaas wuxuu ka ilaalinayaa inuu geedkan uu ku dhaco dhulka ama mirihiisu dhulka taabtaan ama fruit rot ku dhaco oo shayga ay noqoto nabarro uu yeesho. marka sidaa daraaddeed wuxuu noqonayaa geed laalaada oo shayga aan dhulka taabanaynin. marka maadaama uu geedkan uu yahay geedaha oo sameeya shayga saaqa ama saaqa oo nooca qaybta qaraha ku familka ah. marka waxa laga ilaalinayaa mirihiisu dhulka ku dhacaan si standard ayaa loo habeeyaa. marka sidaa daraaddeed waa nooca ugu fiican ee loo abuuro geedkan la yiraahdo qajaarka. waraabkan drip irrigation-ka iyo meel xiran in lagu abuuro si cayayaanka ama cudurrada ku dhaca cayayaanka cudurrada keena oo uga yaraado. waxa waaye waa saana loo habeeyaa. waxaa kaloo uu sameynayaa inuu u sameeyo space wanaagsan si oo shayga uu miro badan u dhalo geedka kala tartan ula gelinin. marka waxaas dhan ayaa waxa waaye laga ilaalinaa. marka waa qaabka marka ugu fiican ee noocaana loo beero bahalkan geedkan oo wax fiican kugu dhalayo haddana oo shaqadiisu yar tahay.